kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin haatiina waxaad leenahay si walbaad noo maqlaysaan iyo meel walba aad joogtaan waxaad leenahay kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha sidoo kale barnaamijkeena ciyaaraha maanta waxaa ku bilaabi doonaa Premier League oo dib u furmay iyo weliba kooxaha Premier League ka ciyaara qaarkood oo boorka iska jafay kooxda la yiraahdo Tottenham Hotspur ayaa iyaduna sidoo kale maanta badisay oo ay ka badisay Burnley oo ay maanta isla ciyaarayeen sidoo kale inta kooxda Sunderland oo 8 sano kadib markaas iyaduna ay markaa guusheedii ugu horeysay ay ka gaartay kooxda West Ham United ee Premier League maanta kadib markii ay dib ugu soo laabteen Premier League haddaba sidoo kale inta waxa sidoo kale inta la ciyaaray kulan oo Aston Villa iyo weliba ay wada ciyaareen kooxda Newcastle United oo ay inta badan maanta ay ahayd ciyaar eber ku dhamaatay oo weliba si adag loo wada ciyaaray haddaba Aston Villa ayaa iyaduna waxay qaadatay kaarka casaanka ama red card sida u taqaanaanba waxayna markaasi ay noqotay iyadoo red card leh 70kii ay markaasi difaaca xiratay isku nadayday inay markaasi Newcastle ay iska daydo inay ka jafjafato dhibcaha iyo weliba hal dhibcood ama 3 dhibcood sidii ugu qaadan kari lahayd maanta waxa markaa kulankaasi ka cadaa in kooxda Newcastle aysan haysanin ciyaaryahan gool u dhalin kara haddaba Isaaq maanta ma dheeleenin macnaheeduna waxa ahayd wuxuu ka dhigan yahay ciyaartooyda maanta Premier League ka maqnaay dhamaantood waxay ka dhigan yihiin inay suuq yaalaan oo ay markaasi sidoo kale inta ciyaaryahanka Isaaq oo maanta Newcastle aan u dheelin macnaheeduna uu yahay inuu markaasi wada hadalka iyo wada xaajoodka kooxda Manchester City Liverpool iyo Newcastle oo markaasi suuq u xiran yahay lagana yaabo isbuucan soo socda in markaasi ay go'aan ka wada qaataan maadaama ciyaaryahanka maanta uusan u dheeleenin sidoo kale ciyaaryahankan Wilson ayaa asna sidoo kale ka maqnaa oo hore ugu tagay oo heshiiskiisu hore u dhacay oo markaasi si beec xur ah kaga tagay kooxda bil ka hor haddaba sidoo kale maanta Man City ayaa caawa dheelaysa oo ilaa haatan ay markaasi ciyaartooda ay socotaa oo 4-0 ay markaasi kooxda Wolves ay ku leedahay ciyaarta ayaa markaasi waxay markaasi Man City soo bandhigtay ciyaarahan in badan aan la cajiibin karin oo dadku markaasi taageera iyo weliba dadka ka falanqeeya ciyaaraha aysan ahayn ciyaar markaasi u dhiganta qaab ciyaareedka Manchester City lagu bartay inay markaasi kubadda ay u dheelaysa ay soo bandhigto isku xirkeeda iyo qaabka ciyaaraha iyo wixii dhanba haddaba waxaa markaasi dareemaysay in Duku kaliya oo ku soo haray kooxda oo markaa dhanka garbaha ay aad iyo aad laciif u ahaayeen in kubadda laga keeno garbaha Haaland markaas loo geeyo inkastoo Haaland uu dhaliyay 2 gool laakiinse aad bay u adkayd inuu helo kubad marka laga reebo ciyaaryahanada qaarkood oo markaasi isku dayay qadka dhexe inay markaas ka aasasaan kubadda oo ay markaasi gaarsiiyaan afka hore ee ciyaaryahanka Haaland oo jooga laakiin saasay tahay waa badiyeen oo wili ciyaartu 90 kuma aysan dhamaanin laakiin 4-0 ayay leedahay iyadoo 90ka ay markaasi imanka la marayo ciyaartu wili waa ay socotaa si walba ay ahaato waxaa markaasi ka muuqato kooxda Manchester City habacsanaan dhanka garbaha oo markaasi ciyaartooydii garbaha ka dheelaysay Safinho maanta bench ayuu ku jiray oo macnaha maanta benchina kuma jirin liiska xataa kuma jirin oo ciyaartooyda benchiga xataa ma aysan joogin sidoo kale Anderson asna sidoo kale ma uusan joogin waa sidan duhurkeeda kugu sheegaba maanta waxay macno la tahay marka taa in yani labadaas ciyaartooyba kooxda markaas laga sii dirayo maadaama Safinho kooxda Tottenham ay rabto inay la wareegto ciyaaryahankan sidoo kale Anderson 10 milyan loo soo bandhiga lacag gaaraysa 10 milyan oo euro kooxda Galatasaray ay soo bandhigtay kana soo gudbisay dalab ah in ay ku iibsanayso ciyaaryahankaasi Anderson ee goolhayaha kooxda Manchester City labadaas ciyaartooy maadaama ay suuqa wada xaajoodka kula jiraan labada kooxood Man City iyo weliba Galatasaray sidoo kale Man City iyo weliba Tottenham soo marka waxay naadiga iyo gudiga naadiga Manchester City ay go'aansadeen in labadaas ciyaartooy inay markaasi ka reebaan safarka maanta ay soo aadeen kooxda Wolves gurigeeda ay ku ciyaarayeen haddaba ciyaartooydaas marka waxay ka dhigan yihiin ciyaartooydii maanta laga soo tago inay markaasi ciyaartooydaas ayna ka mid noqonaynin kooxaha u ciyaarayo ciyaartooydaasi oo listigooda ay ku jiraan sidoo kale waxaa badiyay maanta
Sunderland oo 3-0 ay ku badisay, Tottenham oo 3-0 ay ku badisay, waana Aston Villa iyo waxay isla gargarab dhaceen barbaro oo ever ay iskula dhaceen Newcastle, Brighton iyo Fulham hal iyo hal ay iskula garab dhaceen. ciyaartu waxa ahayd maanta mid aad iyo aad xamaasad u leh. marka aad baad mahadsantihiin asxaabtayda qiimaha iyo qaayaha inaga mudan. haddii aad nala soo gaarteen ilaa iyo dhammaadka barnaamijkeena, fadlan waxaan idinka codsanayaa inoo follow gareysaan haddaadan followi ahayn. haddaa followi tahayna fadlan isku day inaa ii share gareyso oo commentiga iyo liketa waa adiga xaggaaga wixii markaasi fakarkaaga ku jiro iyo wixii barnaamijka ku saabsan iyo wixii laga bedeli karo is leedahay iyo fakarkaaga wixii ku aadan oo kooxaha Premier League maadaama ay furmeen yaad is leedahay way ku guuleysan kartaa kooxdaas, koox hebel ku guuleysan karto iyo koox hebel ku guuleysan karto. kulay fakarka waa xaggaaga, waxayna muhiim u tahay in markaas aan ogaano dadka anaga igu xiran oo page-kayga ku xiran, YouTube-kayga ku xiran, waxyaabaha ay jecel yihiin iyo qaabkay wax u arkaan iyo habtabinteena haddii aysan ku qancin iyo haddii ku qancaan waxyaabahan ka bedeli lahayn iyo qaabka markaas aad u aragto. waxay marka muhiim inaga noo tahay inaan markaas annagana aan halkan idin soo bandhigno barnaamijyaadka markaas aad iyo qaabka aad u jeceshiin inaan wax idinkugu tagino insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo subxaanahu wa tacaala. fadlan fakarkaaga ku aadan kulanka derbiga ah ee berrito la dheelayo Manchester United iyo weliba kooxda Arsenal oo Arsenal ay u safartay dalka kooxda Manchester ay u soo safartay xaggeeda magaalada Manchester, sidoo kale kooxda Manchester oo iyadu ku dheelayso Old Trafford, Arsenalna markaasi ay away ay tahay ama marti ay tahay. waxaa markaasi diiradda la saaray kulankaas inkastoo hore labada kooxood aan soo wada aragnay sanadii la soo dhaafay baan arkaynay qaab ciyaaraadkooda iyo qaabkay u ciyaarayaan iyo macalinkan cusub oo yimid qaabka ciyaartooyda u dheelsiinayo iyo qaabka markaas kaga soo hortagayo kooxda Arsenal. sidoo kale laakiin maanta waxay diiraddu saaran tahay labada ciyaartooy ah ciyaaryahan Benjamin Sesko iyo weliba ciyaaryahan Victor Gyökeres. haddaba Gyökeres ma awoodi karaa lagu leeyahay inuu jijibiyo ama uu burburiyo difaacyada kooxda Manchester United. Benjamin Sesko asiguna sidoo kale ma awoodi karaa inuu burburiyo oo gool ka dhaliyo ciyaaryahanada kooxda Arsenal. fadlan fakirkaaga commentiga inoogu reeb. mahadsanid. qaybta commentiga ayaan markaasi idinku sugaynaa oo aan markaasi isleenahay commentiyadiina halkaas inoogu soo dhiga. aad baad mahadsantiin asxaabtayda qiimaha iyo qaayaha mudan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.